قبلي فرح قعلو عقله قريه نبات قوقا قيو قبلي فرح قعلو عقله قريه نبات رهقونا أنكو قرنسيه قرات كفاية هو قفكو قلبا أهو بالو قرونكو بدقاقي عياريدي أهو بالو قوبتي ترتنقو سرع دايو أهو بالو قصوركونا كوب قدوشاي رهقونا أنكو قرنسيه هذا الشرف لو سمي دليرada gobolka iyo xafiiskan sports iyo xafiiskan daladan dhalinyarada in badan bay waxay yihiin xiriir wadaagan xafiiskan mudan de moor wuxuu ka shaqeeyaa civil society-ga iyo bulshada laftigeedii soo xaq kale uga shaqeyn lahaa xafiiskan dhalinyarada oo Saciid gudoomiyaha u yahayna in badan baan soo wada shaqeynay marka dhalinyarada inta ugu yar aan maanta wax ku darsan karnaa waxay noqotay dhalinyarada inaan wada qadayno aan dhahno dhalinyarada hambalyo guulba inay rajeynaa inaan meeshan iyo meel ka sareysa gaadhaan xaqiiqdii sida dhalinyarada gobolka Nugaal looga bartay annaga xafiiskan hadda aan ka shaqeynay aan joognaa Nugaal baa loogu talagalay laakiin sida la wada socotaan oo dhan Puntland oo dhan ka shaqeeya ama dhamaanba mashaariic ka fuliya marka magaca dhalinyarada Puntland waa mid hadii juhdi iyo dadaal la gariyo meel kasta gaari kara marka waxaan rajeynaynaa Ilaahay dankiis inaa guuleysataan annagana wax allaale wixii karaankayaga ah oo gudoomiye Saciid awalna aan xiriirka dhow wada lahayn oo xafiis ahaan nooga baahataan oo wada yeelan doona qadadaana ma noqon doonto tii ugu dambeysay aamidii ugu horeysay waa isku soo noqon doona qada kaliya ma noqon doonto taageeradeedu dhan kasta aan nooga baahataan wixii karaankayaga la isku nacayrata waan soo gaarsiin doonaa dhalinyarada mar walbana qalbigay waa in la jira insha Allah annaga sportska waa dhagadegaynaa eemani odayaal cuslaade baan marka de waa soo buuxin doonaa garoonka intii juhdi ah markaasna waa ku soo bixin doonaa aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa wanaag waxaan idin rajaynaynaa inaad koobka aad soo qaadaan sidii la idinka bartay waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiisa in Ilaahay idin fududeeyo inta haddaan iraahdo gobolkeenu waa gobol muhiim ah ku yaala meel muhiim ah dadka reer Puntland u dhaxeeya meel waxa weeye dadka reer Puntland oo dhan ay fiirsanayaan oo muraayad u aweeye waxaan doonaynaa marka in wax walba leena kaga daydo haday noqoto sports haday noqoto aqoon haday noqoto siyaasad haday noqoto ka qaybgalka dhalinyarada iyo doorka dhalinyarada in la qaato mas'uuliyad wadareedkaas aynu ka soo wada baxno oo qof walba inageena kamid ah ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado oo mas'uuliyadiisa si sax ah u qaato dhiirigelin iyo dardaaran waxa ka wada tirsanahay ama ka wada midnahay ama in ka dhaxeeya waxa weeye waa magaca gobolka Nugaal sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa qof walba meesha ay kaga soo aadanto ama kaga soo beeganto buu ka qaadanay salaadliga waxa muhiim ah marka in meesha la isleeyahay waxba ku toosaya ama haday hadal tahay ama haday hoota intaba in la isla garab istaago wax raba ugu horeyn aan u mahad celiyo guddiga qiimaha badan ugu horeeyo gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha guddiga kale hawsha la waday sida wanaaga iyo qiim kale u soo xuleen xulka gobolka Nugaal aan qiyaasii dhalinyarada la xareeyay 40 meelaha ahaayeen iyagoo fiirinaya firfircoonantooda dhiiranaantooda khibradooda iyo awoodda u leeyihiin inay kubadda ka hayaan una arkay in gobolka Nugaal ay matali karayaan guud ahaan dhalinyarada kale inta badan wajiyadooda si fiican baa soo garanayna waa dadkii ugu habboonaa aan isleeyahay in koobkan inoo matalaan intii kale saaxiibadiina kale laga yimina iyaduna ma aha inay macnaheedu hareen laakiin waxa weeye idinka booska u matalaya waxyaabaha aadka u helay oo biseelka oo ilaa xal arkay waxay ahayd dhalinyaro idinka in kamid ahaa oo nasiib u waayay inay qayb ka noqdaan xulka soo galaan inay u mahad celiyaan teamkii la soo xulay bogaadiyaan dhiirigeliyaan runtii waxa ka turjumaysaa biseel ba ka turjumaysaa wax iska timina ma aha waxa cadeynaysaa dhalinyarada halka fadhida inay yihiin rag ku kalsoon saaxiibadan yihiin u arka meesha iyagu galaan ama ninka saaxiibka uu galo in ma taqaana uu ku matali karayo si la aligays waxa qabad u arag hadii laga tago iyo hadii lagu daraba waxna markaa sida wanaagsan oo isu wadataan quruxda leh oo wax qayla ay wax buuqa ay ka soo yeerin
iyadoo nambarka la qaatay nambar kooban yahay nambar kubad dheeli karaa oo lisleeyahay xirfadda way yaqaaneen badan yihiin haddana in sidaas isu huwan tihiin isu wadataan waxaa ka turjumaysaa inaan gobollada kale wax dheedhihin arrinta dardaarankaa raba inaan dhallinyarada halka fadhida aan siiyo waxaa weeye in aad u hoggaansataan dhegaysataan maqashaan dadka hoggaankeeni ah oo liidka ah kubaddu aad buu xamaasad badanta dhallinyarada kulli waa isgaranaynaayo banooniga badanaa waxaa laga yaabaa qofka xamaasaddiisa inuu ku xiro mataqaanaa markaas haddii tusaale ahaan beddel uu yimaado oo kale mararka qaar inuu dhibsado ama in garoonka markii la soo gelinayo is yiraahdo maxaa adiga line up laga dhigi waayo farnti hore lagu geen waayo luqadda aan ku hadlayo waa luqadda dhalinyarada aanu maadaama idinka ka mid ahay waxa aan qiyaasanayo ay tahay wax jira oo sida ay mataqaan wax imaan kara heerka maanta soo gaarteen oo ah wadajirka iyo talada iyo wanaagga ku timaadeen inaad koobka ku dhamaystaan noola wadaan maanta kaliya aysan noqonin weligeed aanu ma aragtay dad isu wada kulma oo iscasumo aan noqonno ciyaartooyda waxaan u sheegayaa haddii maalin walba aad rabtaan in meeshaan sharaf lehna la keeno cagta inay ku xiran tahay haddii maalin walbaba aan guul meeshaa kaga soo baxno waa laysku kaya qabsanaya anaa casumayo hadday guul darro timaaddo cid loo yeeraysa ma leh marka taana ogaado idinku mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahadnaqayaa mudan hadday noqon lahayd ganacsatada magaalada hadday noqon lahayd cid kasta oo runtii mudnayd in loo mahadceliyo aanaa magacaabi kara waa uga mahadcelinaynaa inay suurto gasho in xulka gobolka Nugaal la xulo in hoy loo diyaariyo la dejiyo in ma garanaysaa cuntadoodii iyo caafimaadkoodii sida looga shaqayn lahaa dhaqaalihi laga shaqayn lahaa la diyaariyo runtii aad baan uga mahadcelinaynaa runtii waxaan kaloo si kale uga mahadcelinayaa guddiga barnaamijkan ururiyey dhaqaalaha u sameeyey fanka u sameeyey runtii aad bay u mahadsan yihiin oo dhammaantood halkan ay maanta wada fadhiyaan taas waa intii anaga mahadcelinteeda ahayd waxaan kaloo u mahadcelinayaa ciyaartooyda iyo macallimiinta maanta nasiibka u yeeshay inay gobolka Nugaal ay ku matalaan tartanka ee ka furmi doona gobolada Puntland ee magaalada Garowe runtii macallimiintu way mahadsan yihiin way dadaaleen shaqo fiicanna way qabteen waana isleeyahay tiimkaas hadday iskaashadaan hadday noqon lahayd macallimiin iyo ciyaartooyda inay shaqo badan qaban karaan runtiina waxaan ilaahay idinka rajeynayaa inuu idinla garab galo mas'uuliyadda la idin saaray waxaan rabaa inaan halkan runtii mar labaad iyo mar saddexaad walaalo u mahadceliyo waxaan rajeynayaa dad badan oo runtii mudan in halkan ay martiqaadiyo kala duwan ay u sameeyaan tiimka ama soo dhaweeyaan inay ku dayan doonaan mudan iyo gudoomiye Xasan Cabdirsaaq si ay u noqoto dhiirigelin waxaan sugaysa shaqo badan insha Allah taala shaqadana qof walba door buu ka yeelan doonaa gudigan qabanqaabada la'aantood waxba nooma qabsoomeen maanta marka halkan ka dhaqaaqdaa nin walba wuxuu tagi doonaa hoygii xulka kubadda cagta ayuu toos tagi doonaa loo soo maray rumaantii juhdi iyo shaqo aad u xoog badan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waliba waxaan jecelahay inaan magacaabo Qadar Axmed Xaaji Maxamed Cali Shire iyo Siciid Sayte walaasho Maqayr iyo Cabduqaadir Abshir Muuse oo rumaantii kamid ah gudiga qabanqaabada intaas qof weeye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin labada macallinka koowaad iyo macallinka labaadna waxaan leeyahay aad bay u mahadsantihiin maadaama 40 qof aad isku keenteen oo 40kii qof aad soo kala shiisheen inta ugu fiicneedna xulateen markii dad rag meel la isugu keeno rag la rabo in la kala xulo rumaantii qof walba ay waxa meel buu ku dhuftaa laakiin muhiimaddu waxay tahay gobolka Nugaal baa maanta tihiin shalay nin walba shakhsiyadiisa u socday laakiin waxa maanta idinku magacaabay inaad tihiin xulkii kubadda cagta ee gobolka Nugaal markii inta la leeyahay waxa la rabaa awaamiir baa idin fari doona shuruudaha jiri doona waxa jiri doona mataqaanaa howlo ka badan tii awal training ku galeyseen insha Allah taala waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay Xasan qadaan sharafta badan ee nucasumay isaga iyo doorka muhiimka ee saliimka uu qaatay aad baan uga mahadcelinaynaa waana markii koowaadna maaha oo waajibaad ayaa ka saaran wuxuuna ka mid yahay qoreymida dhalinyarada gobolka uu gudoomiye u yahay mar kastana uu idila joogi doona biidnillaahi kariim
insha allahu tacaala dhammaanteedana waxaan aad iyo aad uga mahad celinaya anoo ku hadlay afka guud ahaan madasha inta joogtaba xasan waxaan leeyahay ururka dalada mudan aad baa u mahadsantihiin qadadan sharafta leh aad macsuunteen saxaafadda sharafta badan ee guud ahaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin